maxkamadda ayuu waraaq u soo qoray si hooyadii loo geliyo xabsi aysan weligeed ka soo bixin. waa qiso xanuun badan oo dhex martay wiil yar iyo hooyadii, taasoo dad badan ka fajicisay. wiil u dhashay dalka Maraykanka ayaa wuxuu waraaq u soo qoray qaaliga maxkamadda, isagoona ka codsanaya in hooyadii la geliyo xabsiga, dib dambana aan laga soo saarin. sababta ku qasabtay wiilkani in hooyadii xabsiga la dhiga ayaa waxa ay ahayd in hooyadii ay ku dishay wiilka hortiisa aabihii, isagoona markaa 4 sano jir ahaa. balse wiilkani ma uusan iloobin dhibaatadan, wuxuuna ahaa in mar weliba maskaxdiisa ay ku soo noqnoqonayso, maalin welibana uu xasuusanayo, uuna rajaynayo maalin maalmaha ka mid a inuu xal u heli doono. haweenaydan ayaa ninkeedii si bareer ah u dishay kadib markii uu dhex maray khilaaf, waxayna ku fikirtay inay ka takhalusto noloshana dhaafsiiso. dilka haweenaydan ee geysatay ayaa ahaa mid aad u foolxun oo qof caadi uusan samayn karin, wuxuuna ahaa mid ka fajiciya dadka oo dhan. balse qofka markii uu caroodo waxaa sida badan la soo darso shaydaan oo doonaya inuu u horseedo xumaan iyo waxa aan wanaagsanayn sida ay haweenaydan ay samaysay oo kale. markii ay haweenaydan dishay ninkeedii waxay ku fikirtay sidii ay u aasi lahayd, hase yeeshee shaydaan oo marba marka kasii dambaysa keenaya qorshe kasii xun kii hore ayaa wuxuu u sheegay in ay jarjarto si aan loo ogaanin dhimashadiisa, raadkiisana loo arkin. hase ahaatee wiilkii oo markaa goobta joogay ayaa arrintii aad uga xumaaday, qalbigiisana waxay ku reebtay saameyn uusan weligiis iloobaynin. markii uu soo gaaray wiilkan 10 sano ayuu wuxuu go'aansaday inuu qaaliga maxkamadda u qoro waraaq, wuxuuna ku qoray erayo aad u adag oo qalbiga taabanaya, islamarkaana tusinaya sida uu uga xun yahay dhibaatada ay hooyadii ku samaysay aabihii iyo sida naxariis darrada leh ee u gowracday. haweenaydan ayaa wax ay dareentay murugo iyo walwal markii ay u timid waraaq ka socoto maxkamadda oo lagu dalbanayo inay si degdega ku timaado si loo xaqiijiyo falkan xanuunka badan ee u geysatay wiilkan yar aabihii. kadib markii la xaqiijiyey in ay falkan geysatay ayaa waxaa lagu xukumay 10 sano oo xarig ah, ayadoona loo sheegay in markii ay soo dhammaysato 10ka sano dib maxkamadda loogu soo celin doono, islamarkaana qadyadeeda dib loo furi doono, xukun cusubna lagu qaadi doono. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay janalka Maalmaha, fadlan sabskaraab dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub oo aan soo dhigi doono. mahadsanid.